marka dekada Lughaya waxa weeyaan jidbayad u baahan tahay de waxa weeyaan cidii dhisi lahayd hadii alla yiraahdo wax ka qaban lahayd waa walaalaha iyaga jooga maaragtay hawshan ku jira maaragtay asarta kullay annaga waxa weeyaan maadaama hawshu wax isku mid ay tahay wixii bulshada danaheedii ay tahay community based ay tahay wixii maaragtay hawle la qabanayaaba waxa weeyaan waa wax programyo complementary oo is wada kaabaya marka marnaba annagu maaragtay horta maalintii isku kay horeysay way alxamdulillah awalna inaan kulanna waan jeclayn haddayse maanta noqotay maanta ma noqon doonto maalintii noogu dambeysay oo maalintii noogu horeysay in badanna waan sii kulmi doonaa kullay hawlo in la iska wada kaashan doono wax badan way iska fiican tahay hawluhuna de sidoo kale horeeyaan de programyaduba way kala horeeyaan marka mar ay isku soo dhici doonaanna way wada jiri kartaa laakiin kullay waa tii danihii guud assalaamu calaykum waraxmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بروح عن كامل هاي chapter كي executive كي أردا diaspora مجال أوتوا رمتينا مانت هذه أدبان وفرح سنة هاي إن إماتي كي يجنبوا جو كأهنا كل في وجوه الرئي أردا أسرده مجال بورنا deegaankii meeshii wax laga qabanayay hawshu ka socotay inaan goobjoog ka ahaano runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxweyn bay tahay asarda oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo waxqabadka ay gobolka u qabteen oo soo aragno jidkii soo marnay wadadii oo dhisantay oo maanta muuqata socota runtii bulshada wax ka tartay qof kasta oo diaspora dibadda jooga ama gudaha oo hay'ad iyo shacab iyo magaranaysa shakhsiba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii dadaalka ay wadana inay intaa kasii kordhiyaan oo sii badiyaan waa waxaan jecelahay runtii aan ku boorinayo sidoo kale haddaan nahay ardaa ururkii ardaa ka hadlay walaalkay axmed daahir waxaan ku kordhinayaa dekad noqoto hadday biyo xidheena noqoto wixii loo ay ummadda u baahneed daruuriga ah marka hore la sameeyo marka waxa ay foundationku ambalalo u noqonayaa labada hay'adood oo wixii dhaqaalaha ee kolba foundationka soo gala labada hay'adood ayaa lagu wareejinayaa marka maadaama ay yihiin iyagu dadkii fiilka ka shaqaynayay wixii dhaqaalaha ee kolba foundationku au helo in labada hay'adood lagu wareejiyo maadaama uu yahay maxamed ambalalihi guud ee dhaqanka au yahay waxaan rajaynaynaa scale-ka ama moogtahay waxa yani la helayo la xiriira dhinaca dhaqaalaha in ay aad u weynaado oo maxaanada au wax badan maxaanada oo isbedela au sameeyo marka maanta oo ay yani maalin taariikhi ay tahay waxa aan aad ugu faraxsanahay kulankaas maanta dhacay oo insha Allah wada shaqayntii iyo sidii hab midaysan loo wada shaqayn lahaa oo inoo bilaabmay marka aad baan igu mahadnaqayaa assalaamu calaykum nagu soo booqday horumarkan ku jira horumar la midana ku jira inkastoo sanado badan dhagax iska maqlaynay haddana kullay maanta horteen ma ismaamu salaamin taa horta aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa way soo dadaaleen dawlado badan bay soo raaceen meel durugsan bay ka yimaadeen allah ka jasaay siiyo sideedana tan aan ka shaqaynaana waa khayr tanad noo sheegtaana waa kasii khayr badan sababtoo jidka dadka mari laakiin ciidankii badiya ciidankii beriga haddaad tareen dekadaan dhisno waa naga sii fikir fiicantiin wax alla waxaan heel iyo hoor iyo tabar heli karana diyaar baanu idin lanahay wadadana kullay waa la midaysan yahay binaadam wuu sii xantaa laakiin marka gobolkan ama zalal joogno labada gobolba waa midaysan yihiin sida loo wanooyo dhawaan casunta waa ka warhaynaa imikana jubuutan wada tegayna
gobolkana kolley dadkiisu dee wadda ma suurowdeen in la dhiso kambani baa dhisi lahaa ama dawlad waxa lagu dhisay madayn wax nin ku culusay rag badan kuma cusla far keligina fool ma dhaqdo marka taan midnimada dhaliyadii naga yareed garatay horta aad iyo aad baan ugu boorinayaa inay noqoto oday iyo dhalinyar iyo dumarba wax laga wada shaqeeyo waayo dadku markay saa noqdaan ay dan u jeestaan waa guulaysanaya oo ay isaga tagaan xan iyo khayr daro marka taa aad iyo aad in ilaahay kana siiyo waa ku ducaynayaa idina waa idin mahad celinayaa waxoogaa salaadii waqtiga aynu ugu yar gabagabeeya waa idin salaamayaa 114 salaamantiin jidka iyo waxaad soo marteena ilaahay jasaa'iga xasanaad ha idin ku daro wixii wax qabadana dee ama diyaar baa idin lahay idina noo sheegtayna diyaartayna waa alxamdulillah taasina assalaamu calaykum shubban waddanka jooga waan ku cusubnahay asarda runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadaalka ay samaysay maalintii dhibayd markaan hargeysa ka soo baxnay runtii daqiiqadihii aan jidka soo galnay ayaan aniga oo u dhow in aan dawaqo oo aan dhaco ayaan haddana alxamdulilah aan nafisay intii yaray dhiseen markaan arkay wax weyn bay noo sameeyeen ardaa waxay ku hamiyeysaa inay dekedaa wax ka dhisto ardaa iyo asarda waa laba organisation oo walaala ah oo aan kala maarmin sida bidixda iyo midigta haddii aynaan mid noqonna ardaana ka shaqayn mayno waxaan idiin sheegayaa walaalayaal intii halkan ila joogta iyo inta dibadda joogtaba iyo inta waddanka joogtaba haddaynaan mid noqon reer awdad reer siran iyo reer maxaan ku dhahdaye dhammaantayba haddaynaan mid noqon walaa ardaana meel gaari mayso asardana meel gaari mayso jeebkeena inaan ku xisaabtamayaan labadaba marka walaal aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waad mahadsantihiin kamana maarano ardaa Amoud Foundation iqra iyo asarda afarta hay'adoodba kama maarano hay'ado kale inay noo yimaadaan kama maarano qaar dhirta ka shaqeeyaan u baahannahay qaar waxaan u baahannahay maxaan ku leeyahay biyaha qodaan u baahannahay qaar waxaan u baahannahay intaas oo hay'adood bay u baahannahay marka walaalaanahay weligeeba walaalanaana ardaa iyo asarda wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh sidoo kale runtii aad iyo aad u jecelnahay dekedi runtii kama maaranto jid kama maaranto jidkuna kama maarmo deked kama maarmo lafdhabartii magaranaysaa developmentka dhaqaalaha dadkeennan iyo deegaankeennan wuxuu yahay labadaasaa ka kow ah runtii dadka dibadda jooga waxa kaloo nolon lahaa runtii waxani waa maaha xisbiyo oo kale maaha waa wax runtii magaranaysaa waxqabad ah oo dantii dadka ah inay iyaguna saasoo kale ugu midoobaan oo hadday asarda noqoto iyo hadday ardaa noqoto iyo hadday ururada kale noqdaanba wax alla wixii karaankooga inay runtii ku soo caawiyaan adin iyo fikir iyo magaranaysaa si walba ay u istaagaan in insha allah tacaala dadkeena isbedel si loogu